gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo waraysi gaar ah ku siinayay telefishinka Nisaab TV magaalada Stockholm ayaa mar kale ku celiyay inaan komishanka doorashooyinka ee xilligan jira aanay suurtagelin karin doorasho xalaal ah oo lagu kalsoonaan karo. xisbigu wuxuu diyaar u yahay doorashada inuu ka qayb galo baarlamaanka iyo deegaankaba, laakiin go-aanka ku saabsan komishanka waa go-aan xisbigu gaadhay. waana sidaasaan halkaasaanu ka taagan yahay inaan doorasho komishankaasi qabanaya aanay ka qayb gelin. gudoomiye si dadku u fahmaan komishankani sababta aanu doorasho u qaban karin ee xilligan aydan ugu qanacsanayn, bal sharaxaad ma ka bixin karta? runtii waan ka bixin karaa, laakiin inkastoo loo baahanayn inaan qoraalna waa ka sameynay, madaxweynahana waanu u gudbinay, waqtiga ku habboonna waanu soo sheegi doonaa. laakiin guud ahaan sidii uu qabtay iyo sidii uu maamulay doorashada dee wadarkaysuuna bugaag baa la helay. bugaagta macnaheedu waxa weeye waraaqi lagu codeynaya suuqa laga helay, marka iyo waxyaalo kaloo fara badan baa dhacay intii dee doorashada la maamulayay. sidaa daraaddeed halkan kama taxayo maanta, laakiin waqti ku habboon waan ka taxi doonaa. gudoomiye marka laga hadlayo dhanka doorashooyinka inta badan Somaliland badanka way adkaan jirtay in doorashooyin barkani ka dhacaan, ma kula tahay inay qabsoomi karto doorashada golaha deegaanka ee baarlamaanka oo wada socda? way qabsoomi karaan haddii laga heshiiyo in komishanka dee la bedelo oo doorashada markaa la qabto. sidoo kale gudoomiye Cirro maraan wax ka weydiinay aragtidiisa siyaasadda arrimaha dibadda iyo in si midaysan ay u wajahaan asxaabta qaranku, waxa uu sheegay in xisbigooda wadani ay mar walba arrintaasi diyaar u yihiin. haddii gudoomiye aad ku soo ururiso natiijooyinka shirarkaasi aad la yeelatay ama midowga Yurub ha noqdaan ama baarlamaanka Sweden ha noqdaan, maxaad bulshada u sheegi lahayd? waxaan u sheegi lahaa kulliba mar walba waxa loo baahan yahay baraarujin. marka hore dee Somaliland inay joogto meesha waxay la tahay inay tahay arrin weyn oo ay ka qayb gashay shirarkaas annagoo Somaliland inuu dowladaha la kulanayna oo aanu kala hadalno arrimaha hadda jira ay dufaa ka mid yahay, nabadgelyadu ka mid tahay, arrimaha dibadda, siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland runtii dowladda qurada laguma hadlayn karo. waxaa loo baahan yahay in ciddii garab siin kartaaba ay garab siiso, hadday tahay axsaabta, hadday tahay diasporaha Somaliland, arrintaa in lagala shaqeeyo baahantay. marka waxay la tahay shaqo muhiima oo dalka loo qabanayay maan soo qaban. geesta kalena Cabdiraxmaan Cirro waxa uu sidoo kale ka hadlay doorashadii sida weyn u kala qaybisay bulshada Somaliland, isagoo tilmaamay in asxaabta qaranka iyo shacbigaba loo baahan yahay in la mideeyo. gudoomiye sidoo kale waxyaabaha jira wadankii doorashadii aad gasheen 13 November ka dhacday Somaliland 2017 waxay ahayd doorasho si weyn u kala qaybisay shacbiga Somaliland, isla markaana waliba ay ka sii muuqdaan calaamadaha kala qaybsanaantii doorashadu. gudoomiyaasha xisbiyada saddexdiina xisbi intaas u tagteen ma ka tashateen in qarankii dadkii dib u midayn lahaydeen oo waxyaabaha ku dhex jira ee doorashadu kaga tagtay ka saari lahaydeen? runtii dee marka hore xukuumad baan leenahay oo xukuumadda hadda ku guuleysatay doorashada. tallaabada ugu weyn waxaa laga rabaa xukuumadda inay dee qaybsanaanta ummadda ka saarto iyo isu soo dhaweynteedaba shacbigana midayso. anaguna diyaar baan u nahay inaan kala shaqeyno arrintaas. mararka qaar mas-uuliyiin xukuumadda ka tirsan waxay ku eedeeyaan xisbiga mucaaridka wadani inaanu diyaar u ahayn inuu xukuumadda si toos ah ula shaqeeyo waxyaabaha qaar. marka laga hadlayo tusaale ahaan in dadku isu yimaadaan, dadka qaar waxay aaminsan yihiin in xisbiga wadani aanay garwaaqsan natiijadii doorashada ka soo dhacday, sidaa daraaddeed mucaaradad fara badan weli jirto oo dhankii dhismaha qaranka ah. arrintaas ma jirtaa gudoomiye? maya ma jirto. natiijada waanu aqbalnay. madaxweyne muuse madaxweyne ka dalka, marka halkaa muranba kama jiro. gabagabadiina maraan gudoomiye Cirro wax ka weydiinay sababaha guuldaradii ka soo gaadhay xisbigiisa doorashadii madaxtinimada ee Somaliland ka dhacday dabayaaqadii 2017 ayaa uu ku sheegay sida tan. gudoomiye waxa laga yaabaa su'aasha inta badan dadka maskaxdooda ka buuxaysa ee taageerayaasha aan inta badan arkin Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi, waxaa laga yaabaa inay weydiiyaan amaba haddaan maanta warbaahinna ku weydiinayna ay tahay sababaha la odhan karo way keentay guuldaradii xisbiga wadani ka soo wajahday doorashadii 2017 November ka dhacday Somaliland. waxaan qabaa xisbigu inuu ahaa xisbigii ugu kambeynka wanaagsanaa xisbiyada qaranka. xisbigu uu dadaalay waxaanu qabanay annagu
xisbi ahaan in boob jiray marka taasaana u sabab ahayd hase yeeshee natiijada annagoo eegayna danta qaranka waanu aqbalay. gudoomiye su-aal kaftan haddii aan ku weydiiyo doorashadii 2017 sifa doontaha u dhacday kuma aad guulaysanin rajo intee lag ayaad ka qabtaa in doorashada dambe aad ku guulaysato aad madaxweyne Soomaaliland ka noqotid kulleyba doorashooyinka waxaanu doonaynaa guud ahaan ama aanu ku guulaysto ama cid kale ku guulaysatee in nidaamkiina doorasho aada loo wanaajiyo berigi dhaweyd baa ka warqabteenoo indhaha laga qaadayay dadka markii la diiwaangelinayay laakiin maanta doorashada lama keenin marka waxaan imika ku tala jiraa in nidaamka la hagaajiyo oo ay suurto gasho in qofku keligii uu hal cod yeesho. waa maxamed cawd maxamed, SABC TV, Gothenburg, Sweden.